Qofka Muslimka ahi markuu sooman yahay waxyaabaha uu ka fogaanayo waxaa ka mid ah cunidda iyo cabidda. Sidaa daraaddeed, saacadaha soonka wuxuu jidhka isticmaalayaa wixii kayd u ahaa, sida carbohydrateska, duxda, iyo borotiinska. Jidhka awood uma lahan inuu kaydsado biyo badan. Biyaha ay kelyaha isticmaalayaan waxay noqonayaan xaddi kooban. Tusaale, kaadida aad kaadinayso markaad sooman tahay iyo waqtiyada kale isku midab ma ahan. Tan markaad sooman tahay midabkeedu waa huruud mise jaallo, sababtuna waa xaddiga biyo ay kelyaha isticmaalayso ayaa xaddidan. Fuuqbaxa qofka ku dhaca xilliga soonka waxay ku xidhan tahay jawiga iyo inta saacadood la soomo, laakiin dadka inta badan waxay isku arkaan madax xanuun iyo daal, waayo waxaa keena fuuqbax yar uu qofku wajahayo markuu sooman yahay. Baarayaal lagu kalsoon yahay ayaa caddaynaya in arrintaasi aysan khatar ku ahayn caafimaadka, sababtuna ay tahay in fuuqbaxa yari laga soo kaban karo aftirka mise iftaarka kadib. Dadka shaaha mise sharabyada laga helo kaafeyntu waa maado sare u qaada hawsha maskaxda iyo murqaha. Waxay xilliga ay sooman yihiin isku arkaan daal iyo madax xanuun. Waxaan shaki ku jirin inuu soonku leeyahay saameyn mise faa'iidooyin togan aan la soo koobi karin haddii ay noqoto mid jir iyo ruux ahaanba leh. Baarayaal ayaa waxay xaqiijiyeen in soonku hoos u dhigo xanuunada sida kolestaroolka, xanuunada ku dhaca wadnaha iyo burnida, islamarkaana sare u qaado firfircoonida maskaxda iyo jidhka guud ahaanba. Cunno yaridda waxay kaloo jidhka u fududaysaa inuu diiradda saaro iska saaridda waxyaabaha haraaga ah sida unugyada dhintay iyo waxyaabaha qofka uu ku sumoobi karo. Dhakhtar lagu magacaabo Claire Mahi oo ku takhasusay quudinta ama nafaqada, mar laga wareysanayay TV-ga Al Jazeera wuxuu yidhi, soonka wuxuu nadiifiyaa caloosha islamarkaana wuxuu ka yeelaa mid awood leh. Sidoo kale wuxuu kiciyaa habka loo yaqaano autophagy oo ah hab ay unugyadu isku hagaajiyaan iskana saaraan unugyada tabarbeelan daciifka ah. Soonka qofka wuxuu ka caawin karaa inuu iska xakameeyo mise iska daayo caadooyinka xunxun sida sigaar cabidda, been sheegidda iyo wixii la mid ah.